halkan aan hadda joogaa waxa weeye laag dhinaca bari ka xigta kaalinta gaafane oo kuba naban gaarigan aad arkaysaan ayaa laagtan weyn ee dhinaca sare iga xigta ka soo dhacay bal arrintaa iyo waxa sababay darawalka gaariga waday ayaan barsilayay aad ka wareysatid bal arrintan nooga war arrinta walaal bartay waa qadar ilaahay oo qadar ilaahay ma garanaysaa kaalmo saaka wax ka soo kalaay ma garanaysaa buurma salaadis waxaan ku soo tukaday gabiley isla markaana waxaan doonayay lixda diyaaradda soo degaysay Abu ka imanaysa dad ma garanaysaa igala socday oo qaraaba oo ma garanaysaa ayaan doonayay inaan ka soo qaado airportka sida darteed markaa halka wadada markaan ka soo baxnay ayaa waxaan nala kulmay markii wadada isku dhici gaarnay ma garanaysaa gaari jaado ka soo baxay kaalinta markaa gaarigii ayaa ma garanaysaa ka qaba yaan ku kulanay wadada isla markaana biriiga ka qabaan biriigina uu qaban waaye xaqan u qabaan markaa halkaas igala soo booday mogta ibso qof ayaa gaari ku saaray saddex qof ay saarnaa saddexdiiniba khasaaro waxba lama gaarin aniga ninkan oo arkaysan inuu nala joogay aniga iyo kii kale oo ma garanaysaa si qaaday hooyadiisii raacay dad badan waxay isweydiin karaan xawliga gaarigu ku socday bal hadda xawliga kuma naasocona meesha reer rasuulka ayuun baad yar moodaysay inuu ma garanaysaa lixdan ilaa meelaha ku socday ma garanaysaa inta u dhaxaysa halkan waa laag waad arkaysaa in la yar nidaamiyo maxaad xukuumadda u dilaysaa xukuumadda de kulliba intaasay ka qabatay wixii kale kuwa ma garanaysa saydina inay ka qabato baa meesha yaalla ma garanaysaa ay saa u yar balaariso wadada cidhiidhi lagu yar noqotay markaa labadeed baa kari weyn daawadayaal saad arkaysaa gaariga seerafta ee halkan hadda jarka ka dhacay gaarigaas imika idiin muuqda ayaa meesha ka qaadayay isaga laftiisana sidaad aragtaan camuudda ayuu galay muuqaalkan kooban ee aan idinka warramayey baabuurka seerafka ee laagtaasi ka soo dhacayna waxaan ugu talagalay oo aan idinku soo gudbinayay bartaan ku leeyay facebooka Betri Kosaar nabadgelyo